cashirkeena caawa waxaynu ku qaadan doonaa verb can. haddaba muxuu yahay can waxaa loo isticmaalaa laba waxyaabood oo kala duwan. midi waa permission oo ogolaansho ah, midina waa awood. okay, marka verb can markaad jumle inaad gelisa aad rabtid maxaad u baahan tahay? kow waa subject maxay ahaayeen? waa todobadii I, you, we, they, she, he, it plus canka naftirkiisa plus verb plus object. okay, marka I can speak English sidee u fasiri karnaa? marka I can speak, aniga waxaan ku hadli karaa English. karaadaas haddii aad meesha ka dhex maqashid waa in aad ogaataa in la isticmaalay verb can. karaa, I can speak English. or waxaad dhihi kartaa he can speak English. isagu wuxuu ku hadli karaa English. he can speak English. he waa subject, can waa auxiliary, speak waa verb, Englishna waa object. soo maahan? he can speak English. waxaa khalada inaad dhahdid marka he can speaks English. waa khalad inaad dhahdid he can speaks English. ma la rabo inaad dhahdid. waxaa laga rabaa inaad dhahdid he can speak English. isagu wuxuu ku hadli karaa Englishka. karaa, mar walba karaaba haddaa ku dhaho waa inaad can soo qaadataa. sidoo kalentood waxaadan dhihi karinba he can to speak English. sidoo kalentood waa khalad kale in aad dhahdid he can to meesha aad keentid, iyadana waa anada khalad kale. marka mar walbo todobadan oo subject plus can plus verb plus object intaas le hadalkaasa ku jiraano. can waan bixi karaa, waan cuni karaa, I can eat, I can run, I can go, sidaasaa leedahay. okay, aynu fiirino marka affirmative-ka iyo marka singularka iyo pluralka. sidoo kale waxaan soo sheegnay can dhammaantood inay wada qaadanayaan, todobadaba inay can wada qaadan karaan. hadda fiiri marka I can, you can, he can, she can, it can. intaas waa singular. tusaale I can speak English, aniga waxaan ku hadli karaa Englishka. you can ride a bike, adigu waxaad kaxin kartaa baaskiil. he can drive a car, isagu wuxuu kaxin karaa gaari. she can play the guitar, it can swim. soo ma jeedid? can ayaa la wada isticmaalay dhammaantood plus verb. we can play football, we can play football. yuda sababta aan halkan u gelina waa plural, qaybtaas korane waa singular. hore waxaan u soo qaadanay singular iyo plural waxyaabaha ay kala yihiin. dadka gadaal nooga soo biiray singular waa keli hal xabo, pluralni waa jamac. marka yuda waa la kala qaaday. you marka hal qof ayaa looga hadlayaa, sidaasna waxay ku noqotay singular. sidoo kalentood yudanne waa plural. you can see the stars, adinku waa arki kartiin xidigaha stars. they can dance, iyagu way dance garayn karaan. okay, haatan markaa aynu imaano sida negative-ka looga dhigo. I, you, we, they, she, he, it plus can plus diidmadiyaa meeshaan soo gelinaysaa, kadib waa verbkii. sidoo kalentood waxaad dhihi kartaa can't. I can't speak English or I cannot speak English. labadaba way ku furan yihiin, can't iyo cannot. can't waa marka lasoo gaabiyo, cannotna waa markii caadi a u dhehaysid. tusaale I can't speak Russian, aniga ma ku hadli karo Russian. or waxaad dhihi kartaa I cannot speak Russian, aniga ma ku hadli karo luqadda Russianka. he can't play tennis, isagu ma ciyaari karo tennis. he cannot play tennis, isagu ma ciyaari karo tennis. I can't swim,
use of can't markaa isticmaalaysid waxaa waaye ability ani ma awoodo inaan dabaasho I can't swim aniga ma awoodo inaan dabaasho permission ogolaasho you can use my pen adiga ma isticmaali kartid qalinkayga you can't you can't use my pen adigu ma isticmaali kartid qalinkayga waa permission adi ma u ogolid qofkaas inuu qalinkaaga isticmaalo aynu fiirino tusaalooyinkan kale I can speak English aniga waan ku hadli karaa English waa hadal caadi ah waa affirmative diidma inaan ka dhignaa rabnaa I can't speak Japanese aniga ma ku hadli karo Japanese he can speak Arabic isagu wuxuu ku hadli karaa Arabic he can't speak German isagu ma ku hadli karo German ama luqadda Germanka she can drive a car iyadu waxay kaxin kartaa gaari she can't drive a bus iyadu ma kaxin karto bus a fish can swim malay wuu dabaalan karaa a fish can't swim malaygu ma dabaalan karo halkan waa affirmative-kii sidoo kale dhankan midigna waa negative-kii singular oo affirmative ah singular oo negative ah plural oo jamaca aynu isla fiirino marka I can speak English aniga waxaan ku hadli karaa English I can't speak French aniga ma ku hadli karo Francis waa negative-kii you can ride a bike adigu waxaad kaxin kartaa baaskiil you can't ride a horse adigu ma kaxin kartid faras he can drive a car isagu wuxuu kaxin karaa gaari he can't drive a truck isagu ma kaxin karo truck she can play the guitar iyadu waxay ciyaari kartaa gitaarka she can't play the piano ma ciyaari karto piyaanaha it can swim iyadu way dabaalan kartaa it can't fly ma duuli karto we can play football anagu waxaan ciyaari karnaa kubadda cagta markaan waxaan galnay qaybtii pluralka we can't play tennis anagu ma ciyaari karno tenniska you can see the stars adinku waad arki kartiin xidigaha you can't see the germs adinku ma arki kartiin germska you can't see germs okay they can dance iyagu way dance garayn karaan they can't sing ma heesi karaan they can't sing ma heesi karaan okay markaan aynu fiirino affirmative-kan qaabkii aan uga dhigi lahayn su'aal hadalka meeshaan noogu qoran waa hadal affirmative ah ama hadal iska caadi ah you can speak Spanish adigu waad ku hadli kartaa Spanish waa hadal caadi ah oo aanan su'aal ahayn su'aasha marka waxay noqonaysaa can you speak Spanish miyaad ku hadli kartaa Spanish ama luqadda Spanishka can you soo ma jeedid waa isdhaafinaysaa yuda gudahay gelaysaa kanta ayaa banaanka soo marayso calaamad su'aalna waa saaraysaa can you speak Spanish miyaad ku hadli kartaa Spanishka jawaabtu waxay noqonaysaa yes I can ha waan ku hadli karaa no I can't maya ma ku hadli karo haddaba can sidee bay ula falgelaysaa WH questionskii aynu soo qaadanaynay anigu waxaan ku samayn doonaa qaar yar inta kale waxaa laga rabaa adigu inaad soo samaysid tusaale can you swim ma dabaalan kartaa yes I can anigu waan dabaalan karaa ha waan dabaalan karaa where can you swim halkee baa ku dabaalan kartaa in a swimming pool barkad ama meel adi aa samaysatay when can you swim goormee dabaalan kartaa I can swim after work shaqada kadib ayaan dabaalan karaa what can we do tonight maxaan samayn karnaa caawa we can watch a movie waxaanu daawan karnaa film when can I see you again goorme ayaan ku arki karaa mar labaad you can see me tomorrow biritole ayaad i arki kartaa where can you buy a book halkee baa kasoo iibsan kartaa buugga at the book store waxaa kasoo iibsan kartaa maqaasiinka buugaagta inta kale oo harsan soo